dot connection string. This is my connection. Had database kii waa ku xiranay. Insertion aan sameyn karaa, update aan sameyn karaa, delete aan sameyn karaa. Update aan sameyn karaa, delete ayaan sameyn karaa. meeshaan waxaan ku sameysanaynaa marka SQL commands, SQL reader iyo waxyaabahaas aan sameysanaynaa. waxaan leenahay dim cmd as new SQL command. SQL commandigayga waxaan rabaa inaan u isticmaalo it means insertion, update, delete, SQL command yaa la yaqaana ama SQL statement inaan ran gareeyo. kan ugu horeeya waa maxay? cmd-deeda waxay qaataa property loo yaqaano connection-keedaan siinaynaa and then connection-keena furanaynaa connection.object. database-keena wuu furan yahay hadda, insertion aan ku samayn karnaa. cmd-deena waxay qaataa property loo yaqaano command type. store procedure aan samaysan, store procedure aan ka shaqeyn rabnaa. store procedure-keena wuxuu qaataa magac command text yaa loo yaqaanaa. the name of the store procedure maxaa loo yaqaanaa? insert new aa loo yaqaanaa. well done. store procedure-kaaga haddii aad soo furto how many parameters uu leeyahay? intaanoo parameter u qaataa soo ma? intaana lagaaga baahan inaad u baasto. markaas kadib ayuu shaqeyn doonaa. first name-ka xaggee laga qaadan doonaa? text boxka loo yaqaano first name wax kastoo lasoo geliyo. last name-ka sidoo kale, email-ka sidoo kale, waxyaabahaas oo dhan ayaan sad garan doonaa. waxaan leenahay with cmd ama aan iska soo qaadna sida cmd waxay qaataa parameters. parameterska waxaan leenahay dot add with value. kan koowaad maxaa loo yaqaanaa? user id. user id-geena ma loo baahno user id-ga soo ma? the parameter name comma haddaad dhahdo the value marka insertion la sameynayo looma baahno. kadib waxaan leenahay cmd dot parameters. kan labaad aan baasaynaa dot add with value. kan labaad maxaa loo yaqaanaa? first name soo ma? first name-ka xaggee laga qaadan doonaa? waxaa laga qaadan doonaa wax kastoo la soo geliyo text boxka loo yaqaano first name wax kastoo la soo geliyo and then cmd intii oo kale aan bobsiinaynaa. maxaa loo yaqaanaa isna? last name. last name-ka xaggee laga qaadan doonaa? txt last name wax kastoo la soo geliyo. cmd dot parameters dot add with value. kan kale maxaa loo yaqaanaa? email wax kastoo la soo geliyo text boxka email-ka database-ka lagu xiray txt email dot text. aw kuwaas waa kuwana kuwa data aan diyaarinaya waa. it means first name last name inta laga qaadan doonaa. text boxadan ayaa laga qaadan doonaa. password-ka xaggee laga qaadan doonaa? waxaa laga qaadan doonaa text boxka loo yaqaano password. laba xabo waa mid confirm aa jira iyo mid password caadi ah. ugu dambeyn parameterska waxaan u baahanahay loo yaqaano user type. this is our user type. txt ddl user type dot text ama waa admin ama wax kale. kana noo har marka kan waa maxay? hadduu insertion yahay iyo hadduu update yahay, hadduu delete yahay, anigaa u sheegaya inuu insert yahay, inuu update yahay anigaa u sheegaya. waxaan ka bilaabaynaa marka horeyso cmd dot parameters dot add with value type-kayga marka ugu horeysa waa insertion. goormee waay? badhankan markii lasoo riixo koodka xaguu ku qoran yahay infantigiisa badhankan save double click markii lagu siiyo dhexdeeda mujada. hadduu meel kale kaaga qoran ma kuu shaqeyn doono insertion. ugu dambeyn waxaan leenahay cmd dot execute non query. waxay la mid tahay anigoo meeshaan riixay execute. markaan intaas sameyno kadib waxaan samayn doonaa message aan soo bandhigi doonaa response dot write. waxay ii soo bandhigtaa message oo javascript ah. waxaan leenahay script-gayga waa alert message soo boodaayo. waxay igu soo qortaa and new user has been added. kadibna waxaa noo xirtaa script-geena this is my new style. ugu dambeyn data grid view-geena data bind ha lagu sameeyo. mar labaad ha lasoo rangareeyo, ha lasoo akhriyo. markaan refresh miiga yeelayo sababtoo refresh iiga yeelan waxay tahay waxaan qoray code behind file. high level language code aan qoray, visual basic code aan qoray ama c sharp code. wuxuu u baahan yahay building in project-ga lagu sameeyo oo mar labaad la rangareeyo. si aan building u sameyno waxaad imaanaysaa build solution.
buildingkaagu bogsiin doonaa successful markuu dhaw kadib refresh dhigi kartaa ama waxaad imaanaysaa debug start without debugging control F5 start debugging ama control F5 start without debugging hadda buildingkeena waa noola dhammaystiray projectkeena refresh aan leedahay yes haddii aan isku dayo inaad diiwaan geliyo waxaan leenahay Faaduma Yusuf Ahmed waxaan leenahay faaduma@gmail.com inaan meeshaan keenla rabnaa qofkan passwordka waxaan leenahay admin sorry 123 confirmation card waa samayn doonaa 123 and then waxaan leenahay qofkan waa user ID kadib waxaan leenahay save I hope inuu la xiriin doono yes column insert value null password null ma aqbalayo password maadaama null uusan aqbalaynin waa maxay problemka nalka naga haysto tablekeena passwordka null ma laga yeelayo lula I hope inaasan iyadoo daatana la xariinin anaga waxbaan ku qorno soo ma textbookska passwordka xagee laga qaadanaya naga hubiya password txt password text noo bedel passwordkan informationkiisa noo soo mujibal propertygiisa imaa single line waa welig kadibna waxaan leenahay control F5 start without debugging we hope inuu markaa noo shaqeynayo password sax waay saas noo fahmay waxaan rajeynaynaa daataas in noola xareeyo marka Faadumo 123 user kadibna save can insert null value into column password table online banking column daas null okay wal store procedure kana aan hubino password kamiya null naga yes inta maxaa ka maqan passwordka data ma la geliyo markisa maadaama passwordka uu naga maqan yahay waa in la siiyaa password sidoo kale inta waxaa laga qaadan doonaa password mal ma ogolaan maayo wala aan hal mar u laabano kadibna datadeena save dhaano now it's okay hadda wuu ogolaan doonaa markaan waxaan rajeynaynaa inuu ogolaanayo save yes new user has been added user cusub ayaa meeshan lagu daray ma kasoo muuqanaya meeshan yes wuu kasoo muuqanaya labo physical and database-kayga ugu jiraa I hope inuu sida ugu jiro bal aad u sooran gareema userskeeda 2 persons qof gacanta aan ka geliyo caadiya iyo qof page-kayga laga soo xareeyay that's user creation qaybta update-ka iyo qaybta delete-ka aan gudbaynaa waa bogsiinanaa maadaama waqti badan aysan naga cunaynin oo aan code badan inaan qor u baahneen kii hore unbaa soo koobiyeynaa laakiin waxaan rabnaa kan inaan ku darno hal button oo selectia button selectiona waxaan leenahay auto select berbertigiisa imaanaysa grid view-ga auto select button qaybtana waxaa loogu soo dari doonaa select haddii aad inta waxaa ku jira select mar alla markii meeshaan doorto waxaan rabaa informationkan in inta lagu soo shubo kadibna update lagu sameeyo ama delete lagu sameeyo soo ma yaa la update garan doonaa first name-ka last name-ka iyo kan bas intaan kala faraha laga qaadaya ma loo baahna waayahay double click ku siinaa event-giisa generate garan click event laga qaadaya double click waxaa ku generate gareysma event-giisa mar alla markii click lagu siiyo waxaan rabaa that column-kan la doortay information-kiisa oo ah number 1 inuu aado meeshan kadibna update aan ku sameeyo waayahay waxaan leenahay textbookska loo yaqaano first name textgiisa wuxuu la mid yahay that grid view-gan dot select row dot cell that grid view dot current row dot selected row dot selected row dot cell
cell number kee waaye intuu ka bilaabanayo 0 1 2 kan 2 qaadanayo soo ma waxaan leenahay dot text first name waxaa soo geli doona wax kastoo meesha dhammaantood marka sidaan ku bedelno txt last name textigiisa waxay la mid yahay that grid view dot selected row dot cell number 0 maahan 0 1 2 waay soo ma 3 oo ka noqonaya kan waxaa noo dhigtaa 2 kan waxaa noo dhigtaa number 3 dot text index u qaataa waxaan leenahay txt email textigeeda maadaama emailka aan la bedelin faraan ka qaadayna waxaan leenahay txt email dot enable is equal to false txt password dot enable is equal to false it means mouse ka xataa yaa aqbalin txt confirm dot enable is equal to false email iyo password iyo confirm password ma shaqeyn doonaan ugu dambeyn ddl user type textigeeda waxay la mid tahay that grid view dot selected row dot cell number kee qaadan doontaa 0 1 2 3 4 5 6 waxayda kan ugu dambeeya number 6 dot text waayahay aan dhahno marka building project again ama control F5 maadaama qadka uu iska fudud yahay computerkayga uu fudud yahay hore uu ka soo akhrinayo kuwaan iska xir yes haddii aan isku dayo inaan bedelo qofkan maxamed cabdi cali user typekiisa oo keliya aan bedeli karaa mujida labadan kale ma shaqeynayaan sababta u shaqeynaya waa maxay ma loogu talagelin inay shaqeeyaan update aan rabaa inaan sameeyo safe laftigeeda inay shaqeyso ma rabo sababtoo markaan qofkan horey u jiray waxbaan ka bedelayaa bas mo safety inay shaqeyso ma rabo ayadana sideen yeelayaa mar alla markii lasoo select gareeyo safe inay shaqeyso ayadana diyaar uma yihiin ha iska laabato waxaan leenahay btn safe